الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، waxaan maraynaa marxalad aad u adag. waxaan maraynaa xaalad adag. waxa inagu dul socda awoodda Ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo aayadihiisa qaar ka mid ah. waxa inoo muuqda oon maalin walba la noolahay asxaabtii iyo ahalkii iyo dadkii iyo aadamihii oo si wada jira u dhimanaya, koox koox isu raacaya, la aasayo. qubuurta mid kastood booqato maalinkiiba waxaa la aasayaa tomanaal baa la aasayaa oo isugu imaanaya. in badanoo ka mid ah ma soo xanuunsanin, si kadaa bay u dhimanayaan. waxaa waa la qamanayaa, waa dhimanayaa. laba beri buu yara xanuunsanaa, waa dhimanayaa. si kadaa baa loo la'anayaa. ilaahay tabaaraka wa tacaala qudradiisa iyo awooddiisa inuu addoommadiisa tuso, ama ha ka garaabaan ama yaysan ka garaabin, laakiin awoodda ilaahay in la tuso si ilaahay u cabsi geliyo tabaaraka wa tacaala oo u baraarujiyo. sida allah qur-aanka kariimka inoogu sheegay, wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa. aayaadka iyo calaamadahaas ilaahay dirayo waa cabsigelin. ilaahay addoommadiisa uu ku cabsigelinayo, waa baraarujin. geerida kadada ah oo dadku ay saa u dhimanayaan, nabigeennu sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu inoo sheegay inay ka mid tahay calaamaadka ku tusaya inay qiyaamadii soo dhowaatay, adduunkanina gebagaba yahay. waxaa ka sugan inuu yidhi nebigu sal alla alayh wasalam, min iqtiraabi saaca, qiyaamada soo dhowaanshaheeda waxaa ka mida an yadhara mowtu lfaj'a, inuu faafo oo muuqdo geerida kadadii. addoommadu markay ilaahay caasiyaan, oy ku kufriyaan, oy ilxaad ku kacaan, oo dhulka ilaahay dunuubta ku badiyaan, oy daacadiisa ka haajiraan, oy kibraan oo wax ismoodaan, ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala dharbaaxaya, wax ciqaabaya. saas daraaddeed baa nabigeenna waxaa ka sugan sal alla alay wasalam inuu yidhi, mowtu lfaj'a akhdatu asaf. geerida kadadiihi waa qabasho ka timid ilaahay cadhadiisa. dabcan fujaarta, dadka xunxun iyo gaalada, in badanoo mu'miniinta ka midana shahaado iyo dembi dhaaf iyo naxariis bay u noqonaysaa. oo musiibadu markay timaaddo, sababay ku timaadaba, ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa mid xun iyo mid fiicanba way wada gaadhaa, sida ilaahay qur-aanka inoogu sheegay tabaaraka wa tacaala. nebiguna axaadiistiisa inoogu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. marka cadho ilaahay oo laga cadhaysiiyey oo dunuub la galay, qabasho ka timid weeyaan buu nebigu yuhi sal alla alayh wasalam, iyo cuquubo ka timid geerida kadadiihi. yaa sidaa yidhi? nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh, alladii laa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxaa. waa wuxuusan faylusuuf ka warrami karin, waa wuxuusan aqoon-yahan ka warrami karin, waa waxayna khubaradu waxba ka sheegi karaynin. xanuunka daahirkiisa iyo waxaan yimid bay waa la dhimanayaa, asbaabta loo dhimanayay wax ka sheegi karaan, laakiin xagga rabbi waxa ka yimid cilladiisa iyo xikmaddiisa waxba kama yaqaanaan. waxyi kitaab alle iyo nebi moxamed sal alla alay wasalam iyo rususha hadalkooda oo ilaahay ka warrama tabaaraka wa tacaala iyo xikamkiisa unbaa wax ka sheegi karaya.
marka waa akhdatu asaf ama akhdatu asif maxaa loo baahan yahay marka sidaasoo kale markii ay xaaladdu u jirto oo dadku dhimanayaan oo la geeriyoonayo si jamaaciya loo socdo waxaa loo baahan yahay in aynu talagalkeeda yeelanno waxaa loo baahan yahay inaan diyaar garowno waxaa loo baahan yahay inaynu ku talagalno ka qabriga maanta la geeyey eed soo aastay ka ku xiga miyaad noqon doontaa mise lama yaqaano xaggee iyo sidee iyo sababtee iyo goorma waa hawl ilaahay khaas leeyahay laakiin waxaan hubnaa oo xaqiiqo biyo kama dhibcaan ah ama daah ama ha daahdo ama ha soo degdegtee inaad geeriyoon aad adduunkan dhaafayso xaqiiqo la hubo waaye kullu nafsin daa'iqatu lmowt maxaa kula gudboon marka lagu xusuusiyo lagu tuso saaxiibkaa tagayoo kii kula fadhiya tagayoo yacni waxa weeye dadkaagii tageenoo intaa taqaanay la soo sheego adduunkii socdo yaa ninkii loo xiirayow yaa ninkii qayrkii loo xiirow soo qoyso ninkii qayrkii tagayow iskeen maxaa ku laaban walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun u diyaar garooba geerida ha dhimanin ilaa adigoo ilaahay u hoggaansan mooye ha dhimanin ilaa adigoo tawxiidsanaya mooye ha dhimanin ilaa adigoo ilaahay ateecaya mooye ha dhimanin ilaa adigoo ilaahay raalli gelinaya mooye walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun isdiyaariya oo u diyaar garooba xaqiiqadaa biyo kama dhibcaanka ah waxaa ka mid ah waxyaalaha laynoo jideeyey ee marxaladan oo kale loo baahaya inaan ku dadaalo khaatumo wanaagsan inaan ku dhimanno in hadalkaaga kelimatu tawxiid ugu dambayso laa ilaaha ila allah inaad camal wanaagsanoo ilaahay jecel yahay adoo haya aad ku geeriyooto nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yidhi ruuxu adduunka wax kastoo uu noloshiisa soo ahaa ama soo samayn jiray meesha ugu dambaysa waa khaatumadiisa maxaad ku dhimatay ma gaalnimo ma islaannimo ma taaco ma macsiyo ma khayr ma shar maxaa kuugu dambeeyood ku geeriyootay miisaanka hawl culus bay ku leedahay saas daraaddeed baa aayaddu waxayna leedahay walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuuna xaaladda aad dhimanaysaan ku geeriyooda idinkoo hoggaansan oo ilaahay u hoggaansan tabaaraka wa tacaala nabigeennana waxaa ka sugan sal alla alay wasalam inuu yidhi ilaahay addoonkiisa hadduu khayr la rabo wuu shaqaalaystiistaa istacmalah ilaahay wuu dirsadaa shaqaaluu ka dhigtaa hawl buu u dhiibtaa markaasaa waxay yidhahdeen kayfa yastacmilu see buu u shaqaalaystaa maxaad ka wadaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam wuxuu waafajiyaa camal wanaagsan oo khayr ah intuusan geeriyoonin marka lagu soo dhow yaho xaaladiisu soo dhowaato waqtigiisu dhammaad yahay ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala hanuuniyaa khayrkaa loo diraa salaaduu badiyaa soonkuu badiyaa sadaqaduu badiyaa khayrka amridiisa iyo reebidda xumaantuu badiyaa wuu towbad keenaa wuu soo noqdaa qur-aankuu ku hanuunaayoo qaabilaa asagoo wanaaggaa iyo khayrkaa ku dul sugan ayay tiisii u timaadaa allah baa khayr la damcay ilaahay baa khayr la doonay xadiidka waxaynu ka fahmaynaa addoonka haddaan khayr lala doonin asagoo shar iyo xumaan ku dul sugan ayuu geeriyoodaa oo tii ilaahay u timaadaa innama alumuuru bilkhawaatiim khaatumada hagaajiso ilaahayna u laabo tabaaraka wa tacaala xaaladdan oo kale waxyaalaha loo baahanya waxaa ka mid ah oo muhimka ah in aad loo badiyo istikfaarta iyo towbadda lianna towbadda iyo dembi dhaaf weydiisiga ilaahay oo la badiyo
balaayo soo socotana way ka hor tagtaa balaayo addoommada markaa haysatana way qaadaa waan istaghfiruu rabbakum ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا انت وقتك كغاريسو نولل وناكسن بو إلهي كن نولينا يا هداد بديسو استغفارتا إيا توبدا وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون وقال ذي إلهي ما عذابيو انت أي دنب داف ويدي سنيان شاسترات بديع استغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه بدي عرب كاكا كبدت وحاكلته مهمة ما دام أدركت إن ليس قلي هوشل إن عياها كرد عيسو صاحبدا للتغي قرابدي لقاتي انت تقاني إن هذا أقول بأي سعودين هذيك أنا واتكو حكتاي دردارا كتقر نبي قالنا وحكسوا صلى الله عليه وسلم إنه يري روح مسلم أو وحلا دردار ما هيا وحود إنه دردار مربو هيا لبح بين أي مريان حقي سماها قرنا معها إني سيدا كمران وحلا دردار منا أكتيس أيالان هذا رؤوسا دردار من قرنا معها حقنا معها وحلا دردار مو أيا أكتيس أيالان إنو دردار مو دون يا لكن ما دردار من هبينا مري تضباديا مري بلا مري سندا مري دردارا ملح قارهان وحل الدونية إناد كدر دار أنت هديته حقوق بني آدم دايما لقول يا هي ظلم بعد قشي مظالم أمانوين بعد هيسا إناد تبرعات يا صدقات إسكهر مريسات ربطايو دردارا تو دردارا قر لبها بين مركي سومر تبا كن نقو ديبو فيري ديبو وين باينا هايست ولا دمانا يا وحبا ما قرنا روحا حقوق ديسي ما قرنا تيلقولها ما قرنا ديمه ما قرنا مظالمتي ظلمي قال ما قرنا سو قبري قال لقو مسوغا يمرك سيدادي لقاقا سو لغو غليو godka lagu galiyo ayaa waxa dayacday qoorta ku suran tahay waana lagu haystaa sidaas daraadee dardaaranka iska qora marxaati u sameeya saaxiibadiin u dhiiba meel aamina dhiga reerahaaga u dhiib وهكذا سياد النبض قشو نبينا مركو سيد عليه صلوات ربي والسلام عليه حالده uu ka waramayo ummadiisa uga digayo waad garanaysaa sidaas daraadee dardaaranka qora qaata xadiidka nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam qaarba ilaahi hantisiyay tabaaraka wa taala oo xoolo badan haysta intuu noolaa inuu xoolihiisa sadaqaysto waxa uu diiday bakhaylnimo geeridiisa kadib inuu sadaqaysto dardaarmana waxa uu diiday shaytaan iyo naf baa gafiyay hantiduu ka tagay waa taajir ee sidaadii uu qabriga u galay caruurtiisa iyo xaasaskiisa baa isku qabsaday koob shaaha inay uga sadaqeeyaan waa diideen wariyaa iskale dayacaas soo adigu mali intaad noolayda waxa ku diiday bakhaylnimada iyo lixjeclo kugu jirta haddaad dardaarmi lahayd oo geeridaada kadib wax baxsan lahaydna waad ka gaabisay oo maadan qorin in xoolihii dambigoodu adiga ku saarnaayeen la isku laayo oo koob shaaha lagaaga soo sadaqayn waayo waad istaahishaa marka war isdaba qabta war dardaaranka qora
وردردارنك كتغا ورحقوق دا اسكا إلالية ورديونتا قرى وربني آدم كمظالمتا آد كسميسي هديتها وحقداشا لغا بحنكرو قر سيادو بدباتو أخيرا حالة دهن أن كسوغرنا ولا ليال وحي مدنتهاي إني آدي نوغا شعب سيدا غيريدو يدي ديلدي الدنيا جعيل كان أن سوق قابلنا ويبا قابة طيبة إني قابن تهينا وابد أركتا محاوى لغو قبن بريبا لغو قبن مسادن با لغو قبن سوق قابي قرشياشا دير سوق قابي الدنيا دن كولا تكتي سوق قابي كرسيغان أدو دقالميسا سوق قابي حولهنا أدو أرديسا سوق قابي آفدن كو هايستا سوق قابي meel kula gaari mayse sokadeeda lagu qaban doonaaye soo gaabiyo geeridu inay ka sokayso mar walba qalbigaaga ha ku jirto adoo meel fog laacaya baa meel ka sokaysa laga qaban doonaa hasha qadowga laacaysa qadowga sokadiisay qow ku dhacdaa adoo meel fog laacaya 20 sano 30 sano qorshahooda dejisay إلين جيريدينا وابسات دنبابا بني آدم كواوضا سيدا نبي قانونا وحينو شاقي صلوات ربي والسلام عليه إن يدي ديلا دا دير إيا الدنيا تشعيلكو بني آدم كإنا إلا أبترسطو ونينك الدأدا إيه سريرتا كورور صدي أما هوين يدي الدأدا سريرتا كورور صدي إيه وحوال بكاقبو بي وحول بواكتش العي وحول بواك قوستي لكن لبا الشيء نبي وحول قلبي سودان يروكويه والدنيا تشعيلك يدي ديلة دير واتسين نولانتون تمال ما كولابا سندا كولابا وحا نبي نصور كبحيي وأحرق كبحيي بني آدم كيدي ديلة دي سيو ميل فوق سي سعوتا iyo asbaabtii keenaysay geerida oo dhinacyaha ka haysa iyo geeridiyo ka sokaysa yidi diilada dheer ee meel fog uu sii laacayo nabigu wuxuu ku bixiyay xariiq oo ummadda u sharxay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wa hadihi alhaqiqa sidaas daraadeed walaalayaal xaaladda aan siday tahay ula mucaamaloonno ilaahayna aan u toobad keenno ducadiya baryada aan badinno nabigeennu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi إلهي وحياله كم من قال جرا وحى كمذا إن عقابتي سي كذا وقتماده ودعوين كيسي وحى كمذا كما في صحيح مسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك إله وحان مجن كاجا أهل النعمة ذو إنا إضافتو إجزوش وتحول عافيتك عافمات كاجو إنو يجوريجو وفجاءة نقمتك عقوبة ذو إنا يجسو كديسو وجميع سخطك إيا عرض دمر إله مغان كاغا إلهي كم مغان كل عذر ذا هلستا غيري ذا دقدقا خاتم حمضة حالة حنونات كل متو إلهي أعر توبت كان إلهي أتضرع